Wiilkan oo Miguel lagu magacaabo ayaa dalka Mexico kula noolaa hooyadiisa Rosa, halka aabihiisana uu dhintay markii uu yaraa. Maalin maalmaha ka mid ah intii Rosa ay cuntada karinaysa ayaa waxaa soo wacay in adeerkeeda Carlos, kaasoo u sheegay inay gaangistiro daba socdaan kadib markii ay lacagtoodu qaateen. Sidaas darteed wuxuu ku codsaday inay lacagtan qaado oo ayna Mexico ka tagto. Ugu dambeyn Carlos waxaa qabtay kaartaladan oo uu hogaaminayay nin lagu magacaabo Mauricio. Mauricio wuxuu ogaaday in Carlos uu Rosa la xiriiray kahor inta aysan qaban. Isagoo u malaynaya in Rosa lacagta lagu wareejiyay ayaa uu qorsheeyay inay iyaduna ugaarsadaan oo halkaas ay Carlos ku dileen. Xuduudda Mexico iyo Mareykanka, khaasatan agagaarka Arizona, askari hore oo Jim Hansen lagu magacaabo ayaa intii ugaarsiga ku jira arkay dad si sharci darro ah uga soo tallaabaya xuduudda. Ciidankii arrintan ku shaqo lahaa ayuu wargeliyey kahor inta uusan daba kicin. Muddo kadib wuxuu arkay nin Mexican ah oo lugta ka dhaawacan. Ninkan ayaa waxaa ka tagay kooxdiisa maadaama uu ka socon kari waayay dhaawaca lugtiisa ku yaalay. Xafiiskii xuduudaha ayuu arrintan la wadaagay. Guriga, Jim waxa u yimid nin bankiga ka socday kaasoo ka doonayay inuu bixiyo lacago deyn lagu lahaa isaga. Jim waxay lacagahan deynta ah uga baxeen qalinkii lagu sameeyey xaaskiisii hore ee geeriyootay. Waxaa loo sheegay in gurigiisa lala wareegayo haddii uusan lacagtan bixin. Haatan isagu lacag ma hayo oo wuxuu ninkii ka baryay inuu dhowr usbuuc ugu daro. Galabtii Jim wuxuu u tagay nin xoolaaley ah si uu lo'diisa isaga iibiyo. Jim xitaa haddii uu lo'diisa iibiyo ma awoodo inuu deynta iska bixiyo. Wuxuu habeenkaas tagay baar si uu madax u degsado. wuxuu halkaas kula kulmay Sarah oo adeer u ahaa taasoo ka mid ah booliiska ilaalada xuduudaha. Wuxuu uga sheekeeyay deyntii lagu lahaa taasoo sababi karta inuu gurigiisa waayo. Maanta xigtay xuduudda Mexico iyo Mareykanka, Rosa iyo Miguel waxaa ugaarsanayay gaangistiradii. Waxay isku dayeen inay shabaqan ka tallaabaan si ay Mareykanka u galaan. Taasina waa markii ay la kulmeen Jim oo meesha marayay. Rosa waxay ninkan ka codsatay inuusan booliis ku dacweyn. Muddo aan dheerayn kadib, Mauricio iyo gaangistiradiisii ayaa yimid. Wuxuuna Jim u sheegay inuu Rosa iyo Miguel kusoo wareejiyo. isagoo dareemaya in wiilkan iyo hooyadiisa ay khatar ku sugan yihiin ayaa u go'aansaday inuu difaaco. Tanina waxay ka caraysiisay Mauricio oo xabad ayaa ka dhex bilaabatay Jim iyo nimankan. Jim waxaa u suurtagashay inuu toogtay mid ka mid ah gaangistiradan ka hor intausan Miguel iyo Rosa gaariga kula baxsan. Mauricio ma uusan rabin inay si fudud ku baxsadaan oo Jim ayuu ceejo ku qabtay. Laakiin Jim ayaa ninkan iskala tuuray oo qoyskii la baxsaday. Mauricio ayaa sii carooday kadib markii uu maqlay xabadii Jim oo walaalkiis ku dhuftay inuu u dhintay. Laga bilaabo markaa Mauricio ayaa bilaabay inuu ciil u qaado Jim Hansen. dhinaca kale Jim ayaa xaqiiqsaday in Rosa ay xabad ku dhacday. Iyadoo markii ay ogaatay inaysan dhaawacan ka kici doonin ayay Jim u dhiibtay boorso. Waxayna u sheegtay inuu Miguel u geeyo ayadiisa oo Chicago degan. Rosa halkaas ayay ku nafbaxday oo booliiska ayaa fiidnimadii yimid kuwaasoo Jim u sheegay inay iyagu Miguel u geynayaan qoyskiisa. Maanta xigtay isagoo ku sugan xafiiska xuduudaha oo uuna eegiisa Jackson la socdo ayaa uu arkay baabuurkii kaartalada. Laakiin isagoo tani ma aysan walwalin. Kadib markaas Jim ayaa furay boorsadii Rosa oo wuxuu arkay lacago badan oo ku jirtay. maadaama deen fara badan lagu lahaa Jim ayaa u jeestay dhankii bankiga si uu deymaha isaga bixiyo. Si kastaba haataba markii uu arkay xinjirihii dhiigga Rosa oo boorsada ku yaala ayaa uu hal mar dareenkiisa isbedelay. Wuxuu soo xustay in lacagahan ay yihiin lacago ay hoodaas uga tagtay wiilkeeda rajada ah. Taas darteed wuxuu ku laabtay xafiiskii xuduudaha. Halkaas wuxuu ogaaday in Miguel lagu wareejinayo qoyskiisa oo bannaan ku sugnaa, balse waxa uu cadaatay in qoyskaas ay yihiin Mauricio iyo kooxdiisa. sidaas darteed askarigii markii uu taleefon ku mashquulay ayaa uu si qarsoodi ah Miguel u soo kaxeeyey. dhinaca kale baakinka, Mauricio ayaa arkay Jim oo cunugii kaxisanaya oo wuxuu isku dayay inuu xuduudda ka tallaabo si uu ninkan u dilo oo uu lacagtiisa u soo ceshto. Muddo kadib Jim ayaa gaaray gurigiisa halkaas oo ku soo qaatay qori iyo dhar, dabeedna wuxuu sii ambaxay dhankii Chicago. Isla waqtigaas Mauricio iyo raggiis ayaa bilaabay inay Mareykanka soo galaan. Askarigii halkan tagnaa si fiican ayuu u garanayay halista kaartaladan oo isagoo cabsoonaya ayuu si fudud u fasaxay. intaas kadib Mauricio ayaa si toos ah u aaday gurigii Jim. Gudaha ayuu galay oo wuxuu arkay kredit kaarkiisa iyo bilad ay siiyeen ciidamada Mareykanka. wuxuu dareemay in Jim uusan ahayn nin sahlan. Kadib gurigii ay dab ku qabteen oo ay ka soo tageen. Mareykanka dhexdiisa, Mauricio wuxuu u tagay mid ka mid ah xubnaha kaartalada oo wuxuu u sheegay inuu la socdo dhaqdhaqaaqa kredit kaarkii Jim. Isla waqtigaas Jim ayaa istaagay kaalin si uu u iibsado shidaal iyo khariirad uu u adeegsan rabo safarkiisa Chicago. nasiib darro muusan ogeyn in Mauricio uu la socdo dhaqdhaqaaqii kaarkiisa. gaangistiradan ayaa igoo aan waqti badan iska lumin aaday kaalintii shidaal. Mauricio wuxuu inantii weydiiyey halka uu Jim u socday. wuxuu sheegtay inaysan aqoon oo waxay sidoo kale u diiday inuu eego kaameradii CCTV-ga. isagoo dabcigeeda ka xanaaqaya Mauricio ayaa inantii dilay oo wuxuu kaamerada ka arkay in Jim uu ambaxay dhanka bari. dhan kale Jim waxaa istaajiyey gaari booliis ah kaasoo weydiinaya laysan iyo ID card. Jim ayaa askariga u qortay inuu gadaal u saaran yahay qori u sharciyeysan, balse askarigan keliya ma rabo inuu qoriga baaro oo wuxuu kaloo rabaa inuu Miguel wareysto. si cagajid leh Jim ayaa aqbalay inuu qoro gaarigii booliiska, balse waqti dheer kuma aysan qaadan inuu garwaaqsado in askarigan uu qof taleefon kula hadlayay oo uuna gebi ahaanba iska indhatiray Miguel. isagoo uu shaqaas ku jiro Jim ayaa soo istaagay askarigii oo wuxuu xaqiiqsaday inuu u shaqeeyo kaartalada. kadib askarigan ayuu garaacay ilaa uu ka miir daboolmo. dabadeed Jim ayaa Miguel u sheegay inuu dhuunto ka hor intaysan kaartaladu imaan.
waxyar kadib Mauricio ayaa yimid oo askarigii weydiinaya halka ay Jim iyo Miguel aadeen, laakiin isagoo taasi ma oga oo waa u miir daboolnaa xilligaas. Kadib Mauricio oo askarigii u dhameeyay ayaa dhulka ku arkay khariidadii Jim oo inta uu soo qaatay ayuu iska baxay. Isagoo aan haatan qori haysan, Jim ayaa istaagay dukaankaas oo qori ka iibsaday. Habeenkaas Jim iyo Miguel hotel yar ayay degeen oo isla markiiba waa ay hurdeen. Abaar labadii habeennimo Jim ayaa soo toosay oo bannaanka u soo baxay si uu eeygiisa Jackson ula baashaalo. Wuxuu qaybta reception ku arkay Mauricio iyo kooxdiisa. Jim ayaa isla markiiba Miguel soo kiciyey oo booliiska ay u wacay si uu ugu sheego in rag ay dhac u geysanayaan hotelka uu joogo. Kadib wiilka ayuu dhankii keenta u kaxeeyey. Muddo aan dheerayn kadib gaangistaradii ayaa u dhacay qolkii Jim oo qofna waa ay ka waayeen halkaas. Hareerihii hotelka ay ka raadiyeen iyadoona Mauricio ugu cad ku maray inuu Jim dilayo. Kadib markii uu Mauricio baxay, Jim ayaa Miguel u sheegay inuusan soo dhaqaaqin inta uu eeyga ka soo wadayo. Nasiib darrow oo uu awoodi waayey maadaama uu dilay Mauricio kadib markii uu ku ciyay. Subaxdii Jackson waxaa lagu aasay beerta. Kadib Jim ayaa wacay Sarah. Waxay iyadoo sheegtay inuu Miguel u soo celiyay booliiska, laakiin uu ka diiday isagoo ballan qaaday inuu wiilkan qoyskiisa u geynayo. Kadib waxay sii wateen safarkooda. Halka dhinac kale ay kaartaladu ka fikirayeen wixii Jim ku samayn lahaayeen ayaa markaas Mauricio iyo raggiisu ay heleen khariidadii uu Jim isticmaalayay. Waxaana u caddaatay inuu isagu u socday magaalada Chicago. Kadib markii arrintan ogaadeen, Mauricio ayaa wacay kaartaladii Chicago ku sugnaa oo wuxuu ku amray inay Jim waddada u galaan. Iyagoo daalan, Jim iyo Miguel ayaa buundada hoosteeda ku nasanaya iyagoo isqandacinaya. Way xitaa sii wateen safarkooda iyagoo Chicago u soo dhawaaday. Intii uu highwayga marayay, Jim ayaa arkay gangstaro kor saaran. Wuxuu xaqiiqsaday in la go'doomiyey oo wuxuu gaarigiisa u sii kaxeeyay dhankii baadiyaha si uu khatartooda uga fogaado. Ugu dambayn, kaartaladii ayaa ogaaday halkii uu marayay oo jidka ay u sii galeen. Nasiib wanaag, Jim ayaa mar kale raggan u gambiyey oona gaarigii Mauricio ooda dhex geliyey. Jim isla markiiba gaariga ayuu sheelreeyey oo nimankan ayuu ka fogaaday, halka kooxdii kalena ay ku qasbanaadeen inay soo kala wareegaan oo ay mar kale ceersadaan. Jim ayaa gaariga istaajiyey. Maadaama uu ahaan jiray sniper hore oo ka tirsanaa ciidamadii Marineska, Jim ayaa u suurtagashay inuu toogto darawalkii Mauricio, taasoo keentay inuu gaarigoodu rogmado. Mauricio iyo labadii kale ee soo haray ayaa gaariga ka soo baxay. Dhinaca kale, Jim ayaa isla markiiba Miguel u waday warshad aan meesha ka fogeen oo halkaas ay ku dhunteen. Isagoo qorigiisa adeegsanaya ayaa waxa u suurtagashay inuu daaqadda ka toogtay mid ka mid ah raggii Mauricio oo haatan laba nin keliya ayaa soo hartay. Dabadeed Jim ayaa Miguel ka dalbaday inuu xabad ka dhex rido baqaarka dhexdiisa si uu nimankan u qiyaameeyo. Kadib dhinaca kale ayuu ninkii ka soo maray oo uu toogtay. Qorshahan ayaa noqday mid guulaysta oo Mauricio keliya ayaa haatan soo haray. Isla filaan ah, Mauricio ayaa u dhuntay dhankii baqaarka oo Miguel ayuu qabsaday. Kadibna cunugan yar ayuu qori ku qabtay isagoo Jim ku qasbay inuu qoriga dhigo. Markaas Mauricio oo madaxa ah ayaa Miguel ku qasbay inuu Jim toogto. Nasiib wanaag, waxaa soo baxday in wiilkan uu yahay mid aqli badan oo qasnadii ayuu bastoolada ka saaray kahor intaysan xabaddu dhicin, taasoo Jim siisay fursad ah inuu ninkan ku boodo. Kadib dagaal ba'an ayaa labadooda dhex maray. Isagoo tani arkaya, Miguel ayaa go'aansaday inuu Jim caawiyo. Bastooladii ayuu soo qabsaday oo Mauricio ayuu ku aadiyey. Halkii uu baryo geli lahaa, Mauricio ayaa wiilka ku forjeynaya inuusan xabad ridi karin. Jim oo aan rabin inuu wiilkan wax dil ah geysto ayaa isla markii bastoolada qabsaday oo Mauricio xabado ku dhuftay. Markaas kadib, Jim laba doorasho midkood ah ayuu Mauricio siiyey, kuwaasoo kale ahaa inuu isagu isdilo ama haddii kale uu gacantiisa ku dilayo. Mauricio ayaa markaas doortay inuu isagu isdilo. iyadoo ay haatan dhinteen dhammaan kuwii ceersanayay. Jim iyo Miguel ayaa safarkooda sii watay ilaa ay ka yimaadeen adreskii ay Rosa siisay. Jim ayaa Miguel u sheegay inuu albaabka karkaraaco, oo markii albaabka laga furayna waxaa soo dhaweeyay ayadiis iyo habaryartiisa. Kadib gadaal ayuu eegay, balse Jim ayaan halkaas markaas joogin. Dhammaadka filimka, Jim oo dhacdhacaya ayaa bas koray, oo markii uu fadhiistana wuxuu eegay calooshiisa, taas oo ku dhaawacmay intii uu Mauricio la dagaalamayay. isagoo dareensan inuu si ba'an u dhaawacan yahay ayaa uu indhaha si tartiib ah isugu qabtay oo uuna dhabar u seexday. Muuqaalkan uu filimku soo xirmayo ayaa naga dhigaya mid aan ku jahwareerno in Jim uu dhintay iyo in kale, balse daawada aragtidaada nala wadaag, maxaad u malaynaysaa? Si kastaba ahaataba, dulucda filimka ayaa ah in had iyo jeer aynu oofino balmaha aynu dadka kale la galno. Subscribe saar oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. intaan muuqaal kale mid ah aynu ku kulmayno, sidaas nabadgelyo.